gudoomiyaha gobolka Saaxil ayaa maanta deeqaariyo oo gaaraysa ilaa 130 neef oo loogu talagalay ciidamada jiida hore ee Soomaaliland ka gudoomay dadweynaha kala duwan ee xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan deegaanka Madheera iyo deegaamo kale oo hoos yimaada waxaana halkaasi gudoomiyaha socdaal ku maray deegaanadaasi ku wehelinayay gudoomiyaha degmada Madheera Cumar Ali Xuseen iyo mas'uuliyiin kale waxaana halkaasi ugu horeyn hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha degmada Madheera oo isagu ka wakiilaha dadka kala duwan ee xoolahaasi soo ururiyay ugu talagaleen ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan aagga bari waxaana hadaladiisii ka mid ahaa maanta waxa farxad weyn oo ah lagu joogno macaanaya inaanu gudoomiyaha gobolka Saaxil ku wareejino tuulada macaanayahan arigii ay ugu tala gashay inay kaga qayb qaadato taageerada ay u hayso ciidankooda qaranka ee kula barbar istaagayaan taasoo ugu tala galeen inay u muujiyaan ciidankooda qaranka inay hiilii hooba la garab taagan yihiin waa marlabaadkii ee ay degmadu xoolo u dirayso ciidanka qaranka waa wareegii labaad qaar ka mid ah odayaasha iyo madax dhaqameedka iyo dadka xoolo dhaqatada ay xoolahan ku deeqay ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa iyaguna halkaasi sheegay in mar walba ay barbar taagan yihiin ciidankooda waxaan wareejinaynaa 34 neef ku wareejinaynaa ciidamada qaranka una wareejinaynaa jiida hore hiil iyo hoona waanu la garab taagannahay ciidankayaga jiida hore marka hore halka waxaan ku wareejinaynaa 56 neef oo ari ah oo lagu tala galay ciidamada jiida hore ariga dadku iskood bay isku abaabuleen waa dadku waxay muujinayaan dareenkooda ku muujinayaan inay la socdaan ciidamada qaranka hiil iyo hooba la garab taagan yihiin marka labaadna waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland go'aanka cad ee uu ka qaatay tukaraq ee uu yiri cid gardaraysan meena cidna weerari meena laakiin xuduudaha ayaga waanu sugaynaa warahmatullaahi wa barakaatuh horta marka hore ilaahay baa mahad leh marka labaad waxaan ku wareejinaynaa ciidanka qaranka 40 neef ari ka kooban reer Xamaas dadweynaha reer Xamaas waxaan ku wareejinaynaa madaxda gobolka gudoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed Cusmaan Xasan oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ciidanka si degdeg ah loo gaarsiin doono xoolahan kala duwan ee ay shacabkooda ku taageereen ee ay maanta la wareegeen waxaana uu shacabku soo jeediyay in mar walba ay taageeraan isla markaana ay isbarbar taagaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee har iyo habeen u heelan sugidda amniga dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ilaahay baa mahad leh mar labaad waxaan hadda la wareegaynaa oo tuulada Xamaasan kala wareegaynaa arigii ay ugu talagaleen dhiirigelinta ciidamada waa la idinka gudoomay degmadu waa degmadii muxuu ahaayay Madheera ilaa hadda ariga aan la wareegnay maanta waxa weeyaan 130 neef oo ariya oo ay degmadu guud ahaan ku deeqday horeyna ay in hore ugu deeqeen welina qaybo kale ay dhiman yihiin oo hadda ay soo wadaan waxaana markii ugu horeysay ee dadka ku dhaqan deegaankaasi ay xoolo iyo caawimo u soo diraan ciidanka qaranka ee Soomaaliland Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera